يوم عرفة مركز سنة كان waxay ku beegantay maalin jumco ah waxa aad la isu weydiiyaa qofkii awal aan soo soomin sideedii hore maalinta hadda ka dambeysana waa ciid oo la soomayo soonku waa xaraan maalinta kaligeed ma soomi kara ilaa dadku waxay og yihiin maalinta jumcada in soon lagu gaar yeelo nabigu inuu reebay calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhex jirnaa ayaamihii fadliga badnaa oo bisha dilxija tobankeedii hore maanta oo ah yawmu tarwiya ama maalinta bishu ay 8 tahay tobanka maalmood sida nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa maalmaha sanadka ugu fadliga badan habeenada marka la yiraahdo waxa ugu fadli badan habeenada bisha ramadaan tobanka ugu dambeeya laakiin maalmaha marka la yiraahdo sida nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam maalmahan ayaa ugu fadli badan waa maalmihii nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam amal la yimaado oo ilaahay agtiisa looga kalgacayl badan yahay inaanu jirin amalka ayaamahan la yimaado bari waxayna ku soo foolay marka yawmu carafa oo kamid ah maalmahaas tobanka ah oo bishaan fadliga badan allah iyo rasuulkiisa ay u sheegeen yawmu carafa horta ugu horeyn waa maalinta ugu weyn ayaamaha xajka maxaa yeelay rukniga ugu weyn acmaasha xajka oo carafa wuquufka ama istaaga la istaagayo carafa maalinta u dhacayo way oo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam الحج عرفة حج كبا وعرفة محيلي وركنيجا وجوين وجونا وقتها كوبان أو لقبل أبو مركب قرح الزوج ما أنت سجالك إلى هبين كبيشوا أي طبعا كتهاي واجو وكبريه وقت يسوع أنت سكوي جيه وقفك أنت نستاجين عرفة معناها قفك حجك واو ضعفي سيدو كلمة أنت سوى كم تهاي الأيام المعلومات وإله سبحانه وتعالى إن فري حسك إلهي إن بدينه ويذكر اسم الله في أيام المعلومات يوم عرفة ومالنتي إلهي دينة إسلام كودما يستري مسلمين تنعمدي إلهي كتامي لي ومالنتي أي سودك آيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ونك يهودي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتكيري آيات كم بذا كتاب كين هذين نقصه دقي لهيد وحانو كدقان لهين عيد markuu weydiiyana wuxuu yiri waa aayada markaas Umar waa tuu yiri waa ogahay maalintii soo degtay waxay soo degtay yawmu carafa nabiga uu taagan calayhi salaatu wasalaam carafa marka waa maalintii ilaahay diinteena inoo dhameystiray nicmadiisa ilaahay muslimiinta uu ku taamyeelay subhanahu wa ta'ala maalintaas soonka la soomaa fadli dheeraad buu leeyahay xadiis saxiixa waa tii nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku dhaafaa yawmu carafa soonkeeda السنة الماضية والسنة القادمة سنة كي هراء إيو سنة كسوة صعدة لبدا ودن بقود إلهي وكل عفو قفكي ما انتا صومة فضل كلمة هدان لو شيغين انتا ساكفنا يوم عرفة مركز سنة كان waxay ku beegantay maalin jumco ah waxa aad la isu weydiiyaa qofkii awal aan soo soomin sideedii hore maalinta hadda ka dambeysana waa ciid oo la soomayo soonku waa xaraan maalinta kaligeed ma soomi kara ilaa dadku waxay og yihiin maalinta jumcada in soon lagu gaar yeelo nabigu inuu reebay calayhi salaatu wasalaam maalinta waa la soomaya haddii yawm carafa maalin jumcaha ay ku beeganaato waa la soomaya maxaa yeelay jumca ahaan loo soomaya waxa loo soomaya fadliga yawm carafa in la helo oo nabigu xadiis saxiixa waa tuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam macnaha jumcada ayaan lagu gaar yeelin soon ilaa qof uu waafaqo mooye caado uu lahaa oo maalintu soomi jira ayaa ku beegantay marka yawm carafa haday ku beegantana waa sidaas oo kale maalinta marka kaligeed waa la soomi karaa wayna banaanta waxaana loo soomaya yawm carafa jumca ahaan loo soomi mayo waa maalin ciida oo shanta maalmood oo ciida abay kamid tahay sagaalka iyo tobanka koob iyo tobanka laba iyo tobanka saddex iyo tobanka waa yawm carafa iyo yawm maalinta ciida iyo saddexda ayaamood oo ka dambeeya oo ayaamu tashriiqa ah yawm carafa fadligeeda waxa kamid ah waxa nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam duca ilaahay la baryo ilaahay ducadu ugu jecel yahay way oo ugu weyn duca barya ilaahay la baryo xadiis saxiixa waa tii nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam khayru ducaa'i ducaa'u yawmi carafa duca waxa ugu fadli badan maalinta carafa ee ducada la ducaysto ilaahay la baryo waliba 6 saac oo dambe oo maalinta kamid ah
waxaa la yidhaahdaa waa saacadaha sanadka 6 saaco ugu fadliga badan iyaysan ku dhaafin markii jumcada la tukado berri oo kale ama haddii maalin kale ay ku beegnaato duhurka la tukado ilaa qoraxdu ay ka dhacayso ka faa'iidayso u fariiso xuska ilaahay quraan inaad akhrinaysid ilaahay inaad baryaysid shaqo kale oo dhanba inaad dhigtid ilaahay inaad xusaysid ducada inaad badinaysid maxaa yeelay waa 6 saac oo waxa la sanadkoo dhan ugu fadliga badan waa maalinta nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam duca ilaahay la baryo ee ducada ugu weyn inay tahay waxaad maalinta ilaahay ka baridid insha Allah taala ilaahay waad ka helaysid maalinta fadligeeda waxa kamid ah waa maalinta adoomaha ugu badan ilaahay naarta uu ka xoreeyo subhanahu wa ta'ala sida xadiiska saxiixa nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam ma min yawmin akthara min an ya'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah ma jiro maalin ka badan adoomaha naarta ilaahay uu ka xoreeyo maalinta Arafa adoomaha uu xoreeyo naarta ka xoreeyo ayaa ugu badan adooma ilaahay naarta uu ka xoreeyo subhanahu wa ta'ala marka ilaahay qofku uu ka bariyo ilaahay naarta inuu ka xoreeyo jannadana ilaahay inuu geliyo ducooyinka aad in loo soo celceliyo loo baahan yahay way maalinta fadligeeda waxa kamid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ahlu samaha ugu faanaya sida xadiiska saxiixa nabiga ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inna allaha yubahi bi ahli arafatin ahla samaa ahlu samaha ayaa ilaahay wuxuu ugu faanaa dadka tirada badan oo malaayiinta ah oo yawm arafa ilaahay xusayo arafa taagan waa maalinta ay bilaabanayso takbiirta subaxda shanta maalmood takbiirta wayada socoto marka subaxda marka salaada subax la tukado ayaa takbiirtii muqayyadka la bilaabay tar mudlaqa ah waqti walbana la akhrinayana iyadana waa la akhrinayaa takbiirta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd yawm arafa markay dhamaato waxaan u gudbi doonaa yawm ciid maalinta ciidda oo bisha 10ka ay tahay iyaduna waa maalin aad u fadli badan oo xadiis baa nabigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam sanadka maalmihiisa maalinta ugu fadliga badan inay tahay yawmun nahri waa maalinta ciidda oo udxiyada la qalayo maalintaas acmaal badan ayaa la inoo jideeyay waxa kamid ah horta maalintaas soonkeedu waa xaraan oo lama soomi karo waxa kamid ah acmaasha la inoo jideeyay qofku ciidda inuu soo aado waliba qofka udxiyada qalanaya waa in aanu maxaan ku yiraahdaa waxba soo cunin saasa fiican ciidda inuu u soo lugeeyo meesha lagu tukanayo jamaacada ay ku tukanayso inuu yimaado salaada ciidda in la tukado fadli aad iyo aad u fadli badan ayay leedahay oo nabigu inoo jideeyay calayhi salaatu wasalaam waxa la inoo jideeyay maalintaas in la isugu tahaniyeeyo asxaabtii nabiga radiyallahu ta'ala anhu markay ciidda soo tukadaan kadib waxay isugu tahaniyeen jireen taqabbal Allah minna wa minkum ilaahay annaga iyo idinkaba ilaahayna ka wada aqbal maalinta waxa la jideeyay udxiyada in la qalo وحديث صحيح النبي كشيء عليه الصلاة والسلام مجره عمل معناتها الله سمايه وإلهي وكجعليه هاي ليك إن لا ضاليه معناها الناف إن لا قاله وحنا النبي ينوش شيء الناف كاس معناتها قيامة لما أنت سنو إيمانيه لقرتيسي يجيسيهسي يجركيسي إنسان وحنا كم غنين ينو إيمانيه قفك إلهي وكأجر سينيه سبحانه وتعالى ليك الناف كان عن إنسان لك كل عين مركز الناف كل جورعه إلهي أكتي سميل إلهي أجي هاي ليك جاس إنه كل عين marka udxiyada iyadana aad in loogu dadaalo waliba neef udxiyadu ay ku ansaxayso mar badan ba waxa dhacda intay udxiyo qalaan udxiyadooda aanay ka ansixin maxaa yeelay neefkii la rabay in la qalo oo nabigu inoo jideeyay calayhi salaatu wasalaam midaan ahayn bay qalaya waliba waqtigan jilaal baa lagu jiraa neef fiican oo qurux badan waa in la qalaa oo hadduu riyo yahayna 2 sano waa inay u dhamaato 24 bilood hadduu ida yahay idahena waa yar yar ugu yaraan sanad waa inuu u dhamaado hadduu maxaan ku yiraahdaay geel yahay 5 sano waa inuu gaar saas oo kale hadii uu lo yahay 5 sano waa inuu gaaray neefka macnaha lagu udxiyeysanayo marka aad in neef cayilan oo aan caata ahayn neefku waa inaanu ahayn neef xubnihiisu ay bid qabaan oo ay caafimaad qabaan oo aan dhutinayn oo maxaan ku yiraahdaa aan indhalaayn oo maxaan ku aan weed ahayn neefkaasi waa inuu yahay maalintaas ciidda takbiirtii ayaa la wadaya oo iyadana si joogta loo wadaya ama ciidda meesha lagu tukanayo ha noqoto ama ka gadaa ha noqoto ama ka hor ha noqotee ilaa ay inta maxaan ku yiraahdaa ayaam tashriiq ay ka dhamaanayaan wabillahi tawfiiq sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in